عددي شلي بلدوينا كدعدي dhibku uu soo kala gaaray laba qolo oo meeshaas ku dagaalantay oo ka kala tirsan maamulka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan marka hore waxaan rabnaa inaan baaq nabadeed aan u dirno aan yani dhahno labada dhinacba inay joojiyaan waxa dagaal ah oo meeshaas ka socdo in dagaalkaas la joojiyo nabadana la qaato ayaan marka hore ugu baaqaynaa labada dhinac ee dagaalantay waxaa kale oo rabnaa inaan tacsi u dirno intii meesha ku geeriyootay uu ku jiray taliyihii qaybta gobolka maxamed macow oo meeshaas ku geeriyooday ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyaan leenahay intii ku dhaawacmatayna waxaan leenahay ilaahay ha u boogadhayo intaas kadib waxaan rabnaa inaan adkayno in la ilaaliyo midnimada maamulka Hirshabeelle in maamulkaas Hirshabeelle midnimadiisa in la adkeeyo ayaan ku baaqaynaa waxaa kale oo ku baaqaynaa waxa la isku haysto oo dhibka keenay waa khilaaf siyaasadeed in xal siyaasadeed la raadiyo laakiin xabad uusan noqonin xal waxaan saaraynaa guddigaas si dhab ah ayaa aan muxuu ahay as ugu kurgeli doonaa waxaa la sheegayaa ciidamadii militariga iyo nabad sugidii iyo booliiskii oo waliba qaarkood ay yihiin militariga hadda waa ogtiin waa federal ayaa ku jira la leeyahay oo arintaas lug ku leh marka haddii arintaas ay cadaato waxaan kula xisaabtami doonaa xukuumadda Soomaaliya oo aan isleenahay inay xakameyn waaysi militarigeedii oo ay arintaas hadday cadaato sida dadka ay noo sheegayeen noocaas waay waxa kaliya aan rabnaa waxa weey guddi baan saaraynaa insha Allah waxaan maqlayaa xukuumadana inay guddi saarto baaritaankaas waan ka wada qayb galaynaa xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka dad ay u dirayeen